بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، موضوع uu ku saabsan yahay darsigeena maanta sidii horeyba loo sheegay waa aadaabta furitaanka ama aadaabta furniinka. wuxuu xiriir la leeyahay aqoon iswadaarsigii ama nadwadii shalayto oo isla mawduucan laftiisa ku saabsanayd oo laynoogu sheegay shalayto aan ku qaadanay asbaabta keenta furitaanka iyo sidii looga hortegi lahaa ama arrintaa looga taxadari lahaa ama loo baajin lahaa furitaanka. iyo ta ugu dambaysa oo ahayd dhibaatooyinka uu leeyahay furitaanku, dhibaatooyinka ka dhasha ama soo gaadhaya labadii isqabtay ee gurigu ka dumay, ama soo gaadhaya caruurtii ay dhaleen, ama soo gaadhaya bulshadii ay ku dhex noolaayeen. arrimahaasi waxay ahaayeen arrimihii shalayta aan ku qaadanay nadwadii isla mawduucan laftiisa ku saabsanayd ama xiriirka la lahayd. muxaadaradani marka waxa weeye waa aadaab. macnaheedu waxa weeye taxadar kasta markii la sameeyey oo dadaal kasta la sameeyey, xalkama dambaysta waxaa loo arkay iyo daawo furitaan. ile furitaanku markuu daawo yahay, inuu daawo yahay oo maslaxadiisu ay xoog badan tahay daraaddeed ayuuna alla u jideeyey subxaana watacaala. waxay le labada ruux ee noloshu ka dhaxaysa ee nolosha wadaagaya guriga yacni wada jooga, mar bay dantu keenaysaa in ay kala tagaan, in ay mid walba noloshiisii uu goonidiisa u raadsado. maxaa yeele wada joogii baa wuxuu noqday dhibaatadiisu ay ka badatay kala taga dhibaatadii ku jirta. waa mida rabbi tilmaamaya subxaana watacaala, wain yatafaraqaa yugni llahu kula min sacati wakana allahu waasican xakiima. hadday kala tagaan labada ruux, mid walba ilaahay baa deeqaya subxaana watacaala oo waasacnimadiisa iyo risqigiisa waasaca buu ilaahay ka deeqaya. macnaheedu waxa weeye isagana ilaahay subxaana watacaala faraj buu u furayaa, iyadana alla subxaana watacaala faraj buu u furayaa. markii marka nolosha gurigu sidii loogu talagalay ay noqon weydo, ay cidhiiri gasho, ay noqoto nolol ay ku cadaabmusaan ama ay ku rafaadaan labadii ay ka dhaxaysay noloshu, markaas waxay noqonaysaa daawo in la keeno. daawo in la keeno ayay noqonaysaa. xaaladaas ayay waxay tahay xaaladda la jideeyey, furiinka la jideeyey. furiinku marka say culimadu tilmaamayaan, mar wuxuu noqdaa waajib buu noqdaa, mar xaaraan buu noqdaa, mar makruuh buu noqdaa, mar mustaxab buu noqdaa, marna jaa-is iska banaan buu noqdaa. kolba xaaladda aada ku furayso iyo sababta furitaanka keenay ayay ku xidhan. axkaamta shanta ah ayuu kolba mid qaataa bay yidhaahdaan culimadu markay ka hadlayaan dalaaqa iyo furitaanka xukunkiisa.
shaygu marka daawaba ha ahaadee haddana daawadii waxay u baahan tahay meeshii ay ku habboonayd in la dhigo. daawada haddii iyadoo daawo ah haddana cudurkeedii cudur aan ahayn loo isticmaalo, faa'iidadii la rabay laga gaari maayo. qaabkii uu dhakhtarku u tilmaamay kuugu sheegay haddaad u qaadan weydo daawada faa'iidadii laga sugayey laga heli maayo, wixii laga rabayna laga gaari maayo, bal waxaa laga yaabaa dhibaatadii kuu geysato inay ka badato manaafacaadkaad raadinaysa. saas daraaddeed xaaladda ay laga maarmaan uu noqdo furitaanku waxaa la doonayaa in aan laga bixin aadaabtii ilaahay ku talagalay subxaana watacaala, qur-aanka ku soo aroortay, sunnada nabigeena ku timi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. maxay ruuxa muuminkaa ruuxa muslimkee hogaansanahe allah u hogaansamo subxaana watacaala, xaaladda uu guri dhisayo gurigu wuxuu ku dhismaa ilaahay amarkiisa. sharciga ilaahay baa la waafajiya guryaha lagu dhisaa. guryaha markii dantu ay tidhaahdo oy noqoto gurigii in la kala diro labadii ruux ay kala tagaan, waa in iyadana la ilaaliyo aadaabtii ilaahay subxaana watacaala soo dejiyey. xayla ruuxa muuminka iyo gabadha mu'minadda ah ilaahay amarkiisu hadduu meesha yaallo tala iyo go-aan iyagu ma leh. iimaanka aada leedahay hadduu dhab yahay, iimaanka aada leedahay baa wuxuu kalifayaa oo qasbayaa inaad ilaahay subxaana watacaala amarkiisa ka dambayso. khiyaar aadan adigu meesha ku lahayn, waxay ila tahay iyo waxaan rabaa iyo waxaan doonayaa iyo waxaa ila quman, waa inay meesha ka baxdo. waa inaad ilaahay subxaana watacaala aadaabtii u dejiyey aada ilaaliso. markaad guursanaysay yani adigu sidaad rabtay maadan ka yeelin, sidaad rabteenna maydan ku kulmin, laakiin sidii ilaahay idin dejiyey iyo siduu ilaahay subxaana watacaala qeexay ayaad ku kulanteen, gurigan ku dhisateen, nolosha ku wadaagteen, ku wada joogteen. markii la kala tegayana ilaahay subxaana watacaala qaabku wax u dejiyey iyo nidaam ku dejiyey waa in lagu kala tago. wamaa kaana limuminin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim bu alla subxana watacaala. uma ahaanin, umana banaana, umana habboona nin mu'mina iyo gabadh mu'minad ah allah iyo rasuulkiisu markay arrin xukumaan inay khiyaar yeeshaan oo say doonaan ka yeelaan. ma ay lahaa khiyaar ma yeelan. soo mu'min ma tihid, hadduu iimaankaagu dhab yahay khiyaar kama qaadan kartid, saa doonta kama yeeli kartid ilahay amarkiisa subxana watacaala. amarka ilaahay ee ku saabsan noloshaada, gurigaaga ku saabsan, dhaqaalahaaga ku saabsan, yani waxa weye kasabkaaga iyo shaqadaada ku saabsan, amarka ilaahay saa doonta kama yeeli kartid. laakiin waxa weeyaan inamaa kana qawla lmu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulihi an yaquluu samicna waatacna. yani mu'miniinta hadal kale male. haddii la yidhahdo war ilaahay iyo rasuulkiisa u kalaya, hadal aan ahayn waan yeelay, waan maqalay, waana yeelay, waxaan ahayn mala. munaafiqiinta lagu yaqaanaa inay iyagu say doonaan yeelaan. amaa ruuxa mu'minka ah isagu shay kaloo u furan ma jiro inuu yidhaahdo allow hadalkaagii maqlay, inaan yeelana diyaar baan u ahay. intaa waxaan ahayn uma furna, saas rabbi sheegaya subxana watacaala. marka aadaab fa in la ilaaliyo waa laga maarmaan. xaaladda la kala tegayo oo qasab ay noqoto in la kala tago, waa in la ilaaliyo aadaabta furitaanka in la ilaaliyo ayaa laga maarmaan ah. saan horeyba u sheegnay, dalaaqa iyo furitaanka waa in loo fahmo inuu yahay shay ku salaysan xikmad ku salaysan, shay daawo ah oo cudur si kale loo daaweyn waayo, daawooyinka kale anfici waayeen inuu daawo u yahay. waa inaan loo isticmaalin furitaanka sidii shay ganaax oo kale ah, tacziir iyo edbin oo kale waa inaan loo isticmaalin. oo ninku markuu xanaaqaba uu sidii inuu haweenta ku garaacayo oo kaleeto inuusan dhihin maaragtay waad furan tahay, saddexdii baad ku furan tahay, 100 baan kugu furay, sidii macnaa waxa weye sidii isagoo edbinayo o kaleeto. waxana ma aha yani wax laisku edbiyo maaha. dalaaqu edbin ma. dalaaqu waa xugum khatar aw. xugumkan markaad qaadanayso waa inuu noqday mar aad ka baaraan degtay, ka fiirsatay, dantu kugu qabatay, yani waxa weeyaan aada ku qanacday
inaydaan nolol wadaagi karaynin xilligaasoo kaleeto waa inaad go-aankiisa qaado adoo degan adigoo xasiloon adigoon kacsanayn waa inaad go-aankiisa qaado laakiin aadan yani waxa weeyaan aadan ka dhiganin sidii ul adag ku garaacdo kale ku xume oo kaleeto wax noocaas oo kaleeto waa inaan loo isticmaala dalaaqa allah subxaana watacaala walaalayaal wuxuu gacantiisa geliyey ragga iyo gacantooda la geliyey gacantooda waxaa loo geliyey rabbi subxaana watacaala sida uu tilmaamayo الrijaalu qawaamuuna cala الnisa bima fadala allahu bacdahum cala bacdi wabima anfaquu yani waxa weeyaan waxaa loogu dhiibay wax kale ma aha waxoogaa deganaansho ah iyo dulqaad iyo xasilooni iyo shayga ay ku tilaabsanayaan inay miisaamaan iyo inficaalaadkoodu inaysan ka xoog badnayn yani dulqaadkooda xoogaa inay wax miisaami karaan baa loogu dhiibay bima fadala allahu bihi bacdahum cala bacdin yani tafdiilkaa ilahay uu siiyey subxana watacala wabima anfaquu talabaad haddee raggii iyagaa wax bixiyey ayagaa gurigii wixii yaalay dhigay ayagaa waxay yihiin kuwa macnaha waxa weeyaan meherka laga qaaday ayagaa waxay yihiin kuwa kharashka bixiyey haddii la yidhaahdo isagii intuu ninkii kharash garoobay oo meeshan wixiisii xoolaha oo dhan intuu ku bixiyey haddana la yidhaahdo maalintii la doonaa lagu furi karaa haddee ruuxan waxba ka bixin ma lex jeclaabay ninkan meesha kharash baa kaga baxay kharash baa kaga baxay oo maaddaa ka gashay oo lex jeclaa kaga jira saas daraaddeed ku degdegi maayo maxaa yeele khasaaro nina isgelin maayo xaaskiisii inuu furo ku degdegi maayo gurigiisii uu dhisay inuu dumiyo ku degdegi maayo khasaarihii iyo kharashkii uu galay inuu ka dhaqaaqo ku degdegi maayo maxaa yeelay bini aadamku xoolaha iyo maadada waa socolyahay si fudud kagama tago haddiise la yidhahdo ruuxii kharashka bixiyey mid aan ahayn baa furitaanka iskale hadda maxaa kaa galay wy adig marka ha khasaaray sumaadaa khasaaray maya khalaas berrita waa lagu furi leanna waxa weeye wax macnoy ku fadhidaaban jirin markaas wax la exsilay ruuxaasi ama culaysoo ku haysan jirin xikmadda shaaricu marka allah subxaana watacaala uugu dhiibay furitaanka ragga uugu dhiibay ayaa waxay tahay yani waxa weeyaan sababteedu arrimahaas iyo kuwo kaleetaba ayay unoqonaysaa rabbi subxaana watacaala marka wuxuu ku talinaya oo ina amraya haddii la wada noolaan karo hala wada noolaado haddii noloshii ay adkaatiyo wada joogidiina si fudud ha loo kala tago rabbi subxaana watacaala wuxuu yihi faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan si wanaagsan inaad ku haysataan dumarka ama si wanaagsan inaad ku sii daysaan aayad kale rabbi wuxuu ku yihi subxaana watacaala walaa tumsikuuhuna diraaran litactaduu ha haysanina dumarka ha u haysanina inaad dhistaan daraaddeed dhib darti inaad rafaadisaan si ay u cidda tirsadaan oo macnaheedu waxa weeyaan mar kasta oy ku dhawaato inay ciddadii ka baxdaba waa soo cesho waxaad u socodsanaysaa kama damacsanin baqasho kama damacsan laakiin waxaad ka rabtaa inay ciddadu ku dheeraato dhowr beri markay u laaban tahayba waa ku soo cesadi baad leedahay markaad soo cesadato haddana waad furanta haddana waxay ciddo tirsan muddo kale markay kasii bixi rabto haddana waan ku soo cesada waan ku furay haddana muddo dheer oo kale ciddo tirsanaysa walaa tumsikuuhuna diraaran dumarka ha u haysanina hana u soo ceshanina calashaan inaad dhigtaan haddaad haysanayso waxaad u haysanaysaa inaad xuquuqdii lagu lahaydna gudanayso dhaqashana ka damacsan tahay meeshana aad doonayso guri iyo yani waxa weye wanaag aad ka doonayso sidaa ku haysa way noqon weyday soo maaha yani faraha ka qaado daayo markaas yani waxa wey fura maxaa yeelay inta aad xuquuq leedahay in la eg bay haweentani leedahay waa bini aadam waa insaan waa ruux mu'mina karaamo intaad leedahay bay leedahay adiga ilaahay waxaad ugu kala dhow dihiin adiga iyo iyadu ilaahay waxaad ugu kala dhow dihiin una cabsida iyo taqwada inay ilaahay kaaga dhowdahay baad suurtageli karta oy kaa sharaf badanta oo kaa cisi badanta inaad marka dulmido oo ictidaal ku samayso lama ogola sida aan loo ogoleen ayaduba xuquuqdii iyo sohdintii ilaahay ugu talagalay inay soo gudubto rabbi subxaana watacaala wuxuu yihi walahunna mithlu aladii calayhina bilmacruuf walirijaali calayhina daraja dumarku waxay leeyihiin xuquuqda dushooda lagu leeyahay mid lamida iyaguna leeyihin
xuquuqda raggu ku leeyihiin mid lamid a bay iyaguna leeyihiin ragguna darajay la dheer yihiin barbari subxana watacaala oo darajo dheeraaday raggu leeyihiin oo darajadii qawaamada iyo guriga mas-uuliyadiisa iyo xilkiisii xuquuqda aada leedahay iyo bini aadamnimada aada leedahay iyo sharafka aada doonayso iyo waxaad rabto ayay iyaduna doonaysaa inaad kula dhaqanto saas daraaddeed baa nabigeena wuxu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii allah iyo maalinta aakhira rumaysani waxa uu doonayo dadku ay inay kula dhaqmaan dadkaa kula dhaqmo ma rabtid adiga in lagu xanibo ma rabtid in lagu xumeeyo ma rabtid in lagu canaado yacni waxa weye haddaad booskeeda joogi lahayd sida aada rabto haddaad booskeeda joogi lahayd oo iyadoo kale aada ahaan lahayd oo xaaladda iyada haysata ay ku haysan lahayd sidii aada jeceshahay in lagugula dhaqmo kula dhaqan iyada saad adigu kula dhaqmi lahayd naftaada kula dhaqmi lahayd baa la doonaya in lagula dhaqmo macnaha marka yani waxa weeyaan rabbi subxaana watacaala labada arrimood hadii la wada joogayana samaan iyo wanaag haddii ay noqon weydana kala tegid wanaagsan ayuu rabbi subxana watacala inagula talinaya walaalayaal markay laga maarmaan noqoto gurigii in la kala tago aadaab baa loo baahan yahay aadaabta loo baahan yahay laga maarmaanka waxaa ka mid ah ninku haweenayda markuu furayo oo furiinku xaggiisa ka imaanayo haweentu xaaladda ay ku sugan tahay waa inuu ogaado haweenayda xaaladeeda waa inuu ogaado khaasatan haweentu macaaday leedahay oo xilligii caadada miyay ku jirtaa mise kuma jirto ma banaana haweenay caado ku jirta in la furo ma banaana maxaa loo diidayaa laba sababoodba waa loo diidaya sababta koowaad ee loo diidayo waxa weeye haweentu markay caadada ku jirto dabeecaddeedu way isbedeshaa waa wax ilaahay subxaana watacaala ku qadaray dumarka dabeecaddeedii oo dhan deganaanshaheedii wixii aada ku taqaano dhan baa isbedelaya kulayl iyo wax badan oodan garan jirin baad ku arkaysaa ninka marka aan dumarka aqoonin wuxuu leeyahay naagtani waaba isbedeshay na maxaa kugu soo kordhay maxaa isla waanay duruuftan kusoo korodhay kama warhayo xaaladda marka waxa weye dumarku ay caadadu hayso oo xaaladaasi ay kusoo korodhay oo yani waxa weye garashadoodii iyo fahamkoodii iyo deganaanshahoodii iyo wax badan si ka yihiin xaaladaasoo kaleeto waa xaalad haddii uusan ninku qiimaynin oo qadarinin oo garanaynin furitaan keeni karta way saas daraadeed baa waxa xaaladdaa dumarkaa furina xaaladdaa ha furina u kaadiya horta ha dhaafto caadada ha ka baxso waa midda labaadi waxa weeye xaaladaasi waa xaalad uusan ninku hawshii gogosha manaafacaadkii gogosha uusan ku haysanin wa manaafacaadkii gogosha mar hadduusan haysaninna waa laga yaabaa inay ninka waxoogaa ku dhaliso qalbigiisu wax dareemo marka waxaa laleeyahay taana hadday sabab imaan karta way u kaadi iyadana ta saddexaadi waxa weeye haweenku haddii lagu fura iyagoo xilligay caadada ku jiraan waxay keeni kartaa in ay dheeraato muddada ay ciddada ku jiraan lamana rabo inaad ciddada ku dheerayso haweenku sababtu waxa weye ama adigu inaad nin u ahaataa la doonayo ama inay xor ahaato oy rag kala raadsataa la doonayo laakiin xaalad dhexo oo xaggana ay ka tagtay xaggaana ayna gaadhin inaad geliso lama doonayo ciddada inaad ku dheerayso lama rabo ama cismadaada waa inay ku hoos jirto haddayna cismadaada ku hoos jirinna waa inay degdegto xilliga ay xor u noqonayso inay nin kala guursato saas daraaddeed ciddadu sayna ugu dheeraanin baa waxaa la yidhi dumarka caadada markay ku jiraan ha ku furina rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiix albukhaari oo ku yaala cabdullahi bni cumar saxaabiga la yidhahda ayaa waxaa dhacday xaaskiisii ayuu furay iyada oo caado qabta aabihii cumar ayaa nebiga u yimi sal lla alay slam markaasuu yihi rasuul allow wiilkaygii cabdullaahi xaaskiisii ayuu furay iyadoo caado qabta nebigu waa xanaaqay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa xanaaqay markaasaa nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam murhu falyuraajichaa buu nabigu sal alay wasalam amar ku sii ha soo celiye buu rasulku uri sal alay wasalam amar ku sii waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamed wuxuu ku soo amray gabadhii aada furtay iyadoo caado qabto oo macnaha waxa weeyaan aan dhiiggii ka go-in
gabadhaas saa ku furtay soo celi baa lagu yidhi oo markaad soo celisana markaad soo celiso waxaad sugaysaa baa layidhi ha daahir noqoto ha ka qabaysato dhiiggaas haddana caado kale ha hesho ha ka qabaysato caadadaas saddexaad markay ka qabaysato oo ay daahir noqoto adiga oo aydan is-aragoodan u galmoonin markaas fur hadday kula qumanaato hadday kula qumanaato inaad haysatona haysa buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka waa xaaraam waana dembi weyn haweenka in lagu furo markay caado qabaan waa dembi weyn ma aha dunuub yaryar ma aha culimadu haba ka doodeen dalqadaasi ma dhacaysaa mise ma dhacayso dhankaa kama fiirinayo laakiin waxay isla ogol yihiin haweenka oo lagu furo markay caado qabaani inay dembi weyn ay tahay xalkeeduna waxa weeyaan haweentaas ku furto caado iyadoo qabta waa inaad soo celiso oo aada la fiirsato xilligay shareecadu ogolaatay furitaankeeda ogolaatay shardiga koowaad horta aadaabta koowaad middaa wey ka labaadi waxa weeye haweentu waa inay daahir tahay baynu yidhi haddana daahirnimadaa ay daahirka tahay waa inaadan isku arag oo aadan ugu galmoonin waa daahir oo markaa caado ma qabto laakiin markay qabaysatay kadib waad is aragteen ma furi karti iyaduna sii hore oo kale waa dembi waana dembi weyn ma furi karti intay qabaysatay haddaad is aragteen oy ku jirto muhrigii aad isku aragteen ood ku kulanteen waad sugaysaa haddaad u baahato inaad furto waxaad sugaysaa inay caadada soo socoto hesho caadadaa markay hesho kadib ha ka qabaysato qabayskaa labaad oo ay ka qabaysatay caadadii markaana aydaan is arag fur hadday furitaan kula qumay khulaasadu maxay noqonaysaa markaas khulaasadu waxay noqonaysaa haweenta waxaa la furaa mar ay caadadii ka baxday ay daahir tahay daahirnimadaana aydaan isku arag intay qaadatay shuruuddaa mid ka mid a haddii la waayo khalad baad gashay daahirnimo aada isku aragteen ood ku kulanteen haddaad ku furto khalad baad gashay shareecadii meel baad kaga dhacday haddii iyadoo caado qabta aada ku furto khalad baad gasho shareecadii meel baad kaga dhacday arrinta saddexaadi waxay tahay markaad furayso aadaabta waxaa ka mid a inaadan israacinin 3 dalqadood iyo 2 dalqadood toona haddaad furayso waxaa la doonayaa 1 dalqado inaad ku furto mar labaad haddaad u baahato dalqadii labaad baad dhigaysa mar saddexaad haddaad u baahato dalqadii saddexaad baad dhigaysa laakiin waxaan aan israacinayna 3diida aan ku hayna wax soconaya ma iyado waa khalad inay khalad tahayna waxaa kutusaya allah subxaanahu watacaala walaalayaal 3 dalqadood xikmad buu u sameeyey ujeedaa loo sameeyey dan weyn baa ku jirta 3 dalqadood danta ku jirtana waxay tahay reerka marbaa furitaankooda waxaa keeni kara arrin ku cusub oo kugu soo booday ah oo aan laga fiirsanin waxaa dhici karta intay isfuraan haddana inay dib inay isugu soo noqdaan u baahdaan waxaa la doonayaa ninkii in jaanis la siiyo uu kaga fiirsan karo furitaankii ka dhacay hadduu noqosho doonayo uu ku soo noqon karo jaanis baa la doonaya in lagu siiyo saas daraaddeed 1 mar fur ilaa 3 bilood 3 dhiig intay helaysaa jaanis haysataa muddadaa hadday wax iska kaa bedelaan waa soo noqonoo xaaskaygii waa soo ceshaday markhaati ka ahaada ubaa kugu filan inaad aabbaheed iyo weligeed ka doonato uma baahan saas rajactu inaad tidhahdo waan ku noqday markhaati ka ahaada intaasubay u baahanta muddadaasaad jaanis tahay haddana haddii aad intaad soo ceshato xaalad istimaado khilaaf yimaado furitaan dhaco haddana jaanis labaad baad haysataa oo 3 bilood ugu yaraan ama hadday macnaha waxa wey haweenka macnaha caadada laayihiin macnaa 3 caado intay ka helaysaa jaaniskaas haddana kaga fiirsanaysa saloma ku noqon haddaad noqoto diyaar u tahay ahlan wasahlan wax kaa iga iyo dembi kaa celinaya ma jiro adiga le waay adiga un waay mar saddexaad haddaad furto furitaankaasba dambe waxa weeyaan dee markaasi waxa weeyaan waa mar ay rashi soo dhamaato xataa tankixa zawjan hayrak way markaas
ilaa ay nin kaleeto guursatoy soo marto oo weliba uu la aqal galo oo uu u galmoodo oo wixii adiga ay kaa heli jirtay ay ka hesho abadan kugu soo noqon mayso. limaada lianna laba gooroo jaanisa haddii lagu siiyo markii saddexaadna aada ku dhufatay hadda waxaan ciyaar buuba noqon sooma. waxyaalaha shareecadu ay bedeshay baa kamid. jaahiliyadii islaamka ka horreysay ninku xaaskiisa wuxuu furi jiray 100 goor iyo ka badan. waan ku furay haddana waa kusooced, waan ku furay waa kusooced, maba dhammaadaanba dalqadahood iyo xishigoodu maba dhammaada. wax dhammaada ma ahan jir. shareecadaa xadiday waxaa la yidhi 2 goor baad wax soo cesan karta. marka saddexaad haddaad ku dhawaaqtaan waa idin dhammaan. marka intaad muxallal iyo war haweentii baan 3 ku furay oo bal waxaan doonahayaa nin intuu ii guursado habeen ila seexdo oo waxoogaa aan siiyo oo hadda markaa kadib xeelad iyo khiyaano iyo dabamarto inaad ilaahay kula dhaqanto oo lacnadi kugu dhacdo haygelini. maxayna nabigeena wuxu uhi sal alay wasalam lacana allahu almuxallila waalmuxallala lah. midka wax loo xalilayo iyo ka wax xalilaya labadaba lacnad ilaahay ku dhacda buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh. السيس المستعار النبي صلى الله عليه وسلم السيس المستعار وأرجي ارتساء وأرجي لصوء استعارته بديها يقانا ألقاه مركي وقالت إلقى رميسان رياها أما إذوه الرمهيان وان أما أرجي رياها قول رمية باريركا كان لنسو ارتساء ونصوك حيثا أرجي كان مركا أدو ارتساء ارتساء هويني لهبين إلى صيحه وملعون adiga shaqada ka shaqeeyeen malcuun baa tahay. waxaa soo dhan maxaa lugta ku geliyay adaa lugta ku geliyay. jaaniski ilaahay ku siiyay baad ka bayacay oo jaaniski baad ku ciyaartay. qur-aanka walaalayaal haddaad dib u fiirsataan qur-aanku 3 dalqadood oo la israaciyo qur-aanka laga heli maayo. qur-aanku furitaanka uu sheego kulligii min awalihi ilaa aakhirihi waa furitaan dalqaduhu si tartiiba ay u dhacaan. الطلاق مرتان قال الله سبحانه وتعالى. طلاق ولبا غور طلاق لبا غور او طلاق ونينكو حاسيسا كسو عشان كرو. طلاق قيسي في القدي صدحات جلال بك ايمان دونتا. لكن طلاق الثاني كاغا فرن يحي وا لبا غور هدي ليري لما دحي وا لبا دلقدود laba dalqadood iyo 2 goor way kala tahay. haddaan ku idhaahdo maalan 2 goor waxaad tidhaahdaa subxaanallah 2 goor dheh haddaan ku dhaho ood tidhaahdo subxaanallahi maratayni masaxba subxaanallahi 2 goor baad tidhi. amarkaygi miyaad qaadata? maala qaadanin. maxaan kaa rabaa inaad tidhaahdo subxaanallahi inaad dhahdaan rabaa. saasaad amarkay ku qaadan kartaa. maratayni waxa weeye waan ku furay waa mar labaad. laakiin labaan kugu furay maratayni ma aha. luqada carabiga u jirtada allah subxaana watacala rasuulkeena sal alay wasalam markuu yidhi 33 goor salaada marka la tukada kadib ruuxii yidhaahdo subxaana allah 33 goorna allahu akbar yidhaahda 33 goorna alxamdu lilah yidhaahda dunuubtiisii baa loo dhaafaa. ka waran haddaa idhaahdo subxaana allahi 33 alxamdu lilahi 33 allahu akbar 33 sax miya soconaysa? maya. maxaa layga rabaa inaa idhahdo subxaana allah ilaa aan ka gaadho 33. marka maratayni waxa weeye dalqaduhu waa inay 2 goor oo mid walba iskeed u madax banaantahay inay dhacdaan la doonayo. ayadda ka horeysay rabbi ka soo hadlay subxaana watacaala waxaa la yidhi waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina 3 quru. dumarka la furay waxay sugayaan guur labaad intayna guursanin waxay sugayaan yani waxa wey 3 caado 3 goor intay daahir qaadanayaan. waxaa dalqadaasina ay tahay aayaddaasi ka hadlayso waa dalqad ay ka furan tahay soo ceshi ka furan yahay. inay saas tahayna waxaa kutusaya aayadda dhexdeeda rabbi wuxuu yihi wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna.
raggooda ayaa u xaqnimo leh inay soo ceshadaan dalqada lagu soo ceshan karo waa tii koobaad ama waa tii labaad oo gooni u dhacday laakiin 3 dalqadood oo la israaciyey qur-aanku ma sheegin laguma hayo qur-aanka 3 baad ku furan tahay qur-aanka kuma taalo في سورة الطلاق وكان ربي سبحانه وتعالى وحده فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو طارقوهن بمعروف دمر كما كي وقت قولي جالان أما وناس كسي جاي وفرها كقادة أما وناس كخيستا وحال يري وآيات سورة بلوغ الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن دمر كمركز فريسان waxaad ku furtaan ciddadoodu markay soo qaabilsan tahay fura ciddadoodu markay soo qaabilsan tahay hal dalqadaad ku furi tii hore hadday kaa tagtay ta labaad unbaad furi tii labaad hadday kaa tagtay tii saddexaad ee ku laabneed baad mar saddexaad sii daynaysaa lacalla allaha yuxdisu bacda dalika amran buu alla yidhi alla inuu dib ka keeno arrin baa laga yaabaa arrinka dib ka imaan kara muxuu yahay waxaa ka imaan kara isbedel kugu yimaada saan haddaba sheegay isbedel baa kugu imaan kara xaaskaagii dib ugu noqo oo nolol cusub la bilowgaa ku geli kara haddaad 3diiba iska dhamayso de majaalis baa kuu fura laba isbayacay markaas waxa weeyaan inaad markaas aad tiraahdo war gabadhii dib hala ii siiyo oo markaa laguna diidi karo laguna ogolaan karayo ama ma ahe inaad muxallal iyo waxaana macno lahayn aada isticmaasho ama ma ahe inaad wadaad u tagto tiraahdo war wadaadow qaalin baan ku siinaya balqiil ii raadi qaalin baan diyaar laahay xoolaan bixinayaa balqiil ha la ii raadiyo maxaa kugu kallifay waxaasoo lacalla allaha yuxdisu bacda dalika amran waxaa la doonayaa arrin hadduu dib ka yimaado isbedel kugu yimaado xaaskaagiioo meeshan dhow kuu joogtay inaad ayr soo ceshato bal xikmadda ku jirta fiir innagana waxa wey intaan xanaaqno baa waxaa la leeyahay 3dii iyo weliba 3 ruwaa waad maqlay maxay tahay 3dii oo soo ceshi lahayn waxaa soo akrinay war u kaadi saas wax laguma talagelin saana wax laguma furo waxa lagu furaa qaabka shareecadu ugu talagashay haddaad 3 tiraadiya haddaad hal tirahdaba haweentu waa furan waxa iyadana khalad ah in ay adiga aad haweentii doonayso hal dalqada inaad ku furto laakiin intay kuleedka ku dhashay inay ku tiraado ii dhamaysto halkaas 3diiba wada dhig laa 3da inaa wada dhiga adigu melki anaa iskale 3 anaa iskale anaa qaysanahayo waxaygan kala tartiibsanahay maaha kuleetiga in lagugu dhago in xaqii aad adigu lahayd lagu yidhaahdo kulli wada dhammee hal dhib halkaasi haddii aad ku kala socotaan oo ayna waxba dib ka imaan alxamdulilah maanta waa ku furmaysaa ciddada hadday ka baxda dhas wey xataa waxaa jirta walaalayaal haddii xaaska intaad hal dalqada ku furto ama dalqadii labaad aad ku furta iyadoo wax kugu laaban yihiin aad saa ku kala tagtaan oy ciddada saa kaga baxdo mar labaad inaad guursato haddaad u baahato ayadoo nin soo marin baad guursan kartaa ufiirso waa goorma ayadoo wax kuugu laaban yihiin baad kala tagteen ciddadiina way ka baxday naag ajnabiyay kaa noqon guur labaad baad uga baahatay inaad guursato waad guursan kartaa iyadoo nin uusan idin dhexaynin maxaa yeele waxbaa kuugu laabnaa laakiin markaad soo aad dib isu guursataan waxaad ku wada joogaysaan intii kuu laabnay ya maaha inay 3diiba kusoo wada noqonayso intii kuu laabnay maxaa kuu laabnaa 2 dalqadood baa hore iiga tegay oo dalqad baa ii laabnay halkii dalqadu baad ku wada joogaysa mid baad ku furtay oo 2 kuu laabnay 2diin baad ku wada joogaysa yani waxaasoo dhan wuxuu ka dhalanayaa waa faa'iidooyin aad ka helayso markii aad marto qaabkii shareecadu wax u jidaysay furitaanka loogu talagalay haddii kale runtii waxa way dhib badan iyo cidhiidhi badan baad gelaysa rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka maxamuud ibnu labiid waa xadiis culimo badan ay saxiixinayaan qaarna ay taxsiininayaan nin baa nebiga agtiisa xaaskiisa 3 dalqadood ku furay wuxuu yihi nebiga xaaskaygii 3 baan ku furay nebigu waa cadhooday salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu nebigu yuri sal alay wasalam an yulcabu bikitaab illah wa ana bayna adhurikum war ma kitaabka ilaahay baad ku ciyaaraysaan anuu idinla jooga buu nebigu sal alay wasalam ma kitaabka ilaahay baad ku ciyaaraysaan anuu idinla jooga ma diinta ilaahay baad ku ciyaaraysaan
nebigu waa ka xanaaqay saddex dalqadood ninkii wax ku furay wuxuuna ka soo qaaday nin ilaahay diintiisa ku ciyaaray nin saxaabada ka mid oo meesha fadhiyay baa wuxuu yihi nebi allow maandilo qorta ma ka gooyaa ninka galaasa soomaalia waaba lagu qamaamayba saddex dalqadood buu naagtiisa ku furay baa loogu qamaamaya in la dilaa la doonaya rasuulkuna waa ka xanaaqay salawatu rabbi wasalaamu caleyh innagana maxay nala tahay biyo aan cabaynaba waa inagala fudud bal ninku wuxuu ku irsiyaaxayaa saddex inuu yidhaahdo iyo inuu hal dalqada yidhaahdo saddexduba ku irsiyaaxayaaba waa khalad wey khaladkaa dad fara badan ma ay oga oo jaahil bay ka yihin abu daawuudka sunankiisa waxaa ku soo arooray cabdullahi ibni cabbaas saxaabiga la yidhahdo asarkaa mujaahid baa ka warinaya cabdullahi ibni cabbaas baa nin baa u yidhi markaasaa wuxuu yidhi xaaskaygii waa saddex ku furay mujaahid wuxuu leeyahay ibnu cabbaas su-aashaa markii la weydiiyey cabaar buu yaro aamusay mar aan isleeyahay talow miyuu ku celin doonaa oo saddexdii dalqadood hal dalqad unbay ka dhigan tahay iskaga noqo ayuu dhihi doonaa mar aan isleeyahay ayuu wuxuu yidhi buu yidhi intaad khalad kasta samaysaan ibnu cabbaas baa odhanaya khalad kasta intaad samaysaan oo nacasnimo kasta aad ku kacdaan oo ilaahay soodimihiisa aada yani gudubtaan oo shareecada meel kaga dhacdaan baad imaanaysaano markaasaad ibnu cabaasow hadda la imaanaysaan ibnu cabbaas baad hadla soo ordaysaan rabbigaana waad caasiday naagtaadiina waa kaa furan tahay nin ilaahay caasiyey oo ka cabsan waayeyna sid anugu uma hayo maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan haddaad ilaahay ka cabsan lahayd sid waa kuu heli lahaa bu haddaad ilaahay ka cabsan lahayd sil waa kuu heli lahaa laakiin haddaad ilaahay ka cabsan weyday oo saddexdiiba adigu aada israacisay rabbigaana waad caasiday oo dembi baad ka gashay naagtaadina waa kaa furan idhaaf somaarata marka waxa weeyaan mas'aladaas waa inaan ku baraarugno saddexda dalqadood israacintoodu waa khalad shareecada laga gelayo waana khilaafsan tahay hadyigii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo qur-aanku sidii kutusay way khilaafsan tahay labadaba way khilaafsan tahay ayib aadaabta loo baahan yahay in la ilaaliyo waxaa ka mid ah markaad wax furaysaan waa inaad markhaati u samaysaan ninku markuu wax furayo waa inuu markhaati keeno oo uu markhaati u sameeyo ama ehelkiisa ama gabadha ehelkeeda ama ma ahe dad kaleeto markhaati waa inuu meesha joogo qur-aankaa ilahay arrintaa ku sheegay subxana watacala rabbi wuxuu yihi faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruuf aw faariquuhunna bimacruuf waashhiduu daway cadlin minkum bu alla yihi subxana watacala soo ceshiga iyo furitaanka labadaba waa inuu ruuxu markhaati u sameeyo arrintaa waxaa lagu baajinaya ama lagaga hortegaya way garan kartaa waayahan khaasatan waxaa aada u badan ninkii haweentii wuu furayaa haweentii ciddadii bay ka baxaysaa waxaa laga yaabaa inay iska guursato muddo kadib bu wuxuu ku leeyahay waan ku soo ceshaday markii kadibba wax yar kadibba waan kugu noqday oo yaa markhaati kuwa inaad igu noqoto markhaati mayo naagtii nin kaley ilmo u leedahay nin kalea guursaday hawlo kaley iska gashay ciddadii waa ka baxday intaa wuu aamusnaa mar dambe oo xaasha isku quruntay oo mindubuus ku tagtay ayaa wuxuu ku leeyahay waagii waan ku soo ceshaday oo hadday soo ceshatay ku aawo wixii marka waxay noqonaysaa wax iska xeebtisabaho ninku marna uu macnaa waxa weye seeb ka gashado marna uu ka soo bixiyo wax macno weyn laba ma noqona wixii waxaa la doonayaa sida guurka loo weyneeyey furitaankuna inuu weynaa guurka maxaa la yidhi guurka waxaa la yidhi yani waxa weye laa nikaaxa ila biwaliyin wa shaahiday cadlin guurku ma asaxayo haddaan gabadha weligeeda laga guursanin laba markhaatina ayna joogin bal laba markhaati iskaba dhaafa nebigu wuxu uhi sal alay waslam aclinu nikaax guurka muusiya buu nabi ui salawatu rabbi waslamu caleyh guurka muusiya oo durbaana ha la garaaco oo gabdhuhu ha buraanbureen oo yani bulshadu ha ogaato hebel iyo hebla isguursaday saasaa la doonaya laakiin qol madow iyo wixii la odhan jira khudbasireed wax soconay ma qol madow iyo wadaad ku jiro waxoogaa qaadanayo iyo khudbasireed ma soconay iclaamiya buu nabi sal lay slam guurka muusiya
oo hal la ogaado oo durbaanka garaaca rasuulku sallallahu alayhi wasallam hatta durbaanka in la garaaco nabiga amray sallallahu alayhi wasallam si loo ogaado maxaa intaas oo dhan loola dan leeyahay waxa loola dan leeyahay guurka ahkaam baa ka dhalanaya ilma ka dhalanaya labada ruux wada joogidoodii baa ka dhalanaya يعني أحكام كله أو ضد كله سامين كل يلا ليس كذا ليس واحد صوت المركة وإن يصير شيء بشر أكثر وإنه شيء بشر أكثر إنه نقول الدنيا سيرو كله فريسان كمركة غير كفورة يسول لك كله تجيه آداب كله الدنيا إن الإلهية وحوي وإن مرخاتين يشيل لك يعني أو أن أريد اللجوء الدجين أو نينكو وكاتلو أنت ومرخاتك كيان هذا شيء وأصل وورثوجي ويني وإسقبني وعنكوش إن كلا تجنو بدي أقول وان فري هل بالقبض الكفري فرينا وحمصوا شيئين ده وصاع بينه مركز فري سوانا بوجي هذا نكور حينين يعني وين بوجي سعادة دي مية قبضة مثل باكر بوري قائنا وقل الموطئ إن كلا واسقرن كرتا لكن إني عادة قصي إن كلا تينا رنقرن بالغدا إذا بوجيني waxa ku santaman macna waxa weey ayaa ka qaadanaysa ku dhaqmaysa macna marka marxaatigu waa arin muhiim ah waxa kale oo iyadana laga marmaana oo aadaabta kamid ah walaalayaal marka furitaan ku dhacayo waa inaynan ahayn xaaladda ninku cadhaysan xaalad cadha ah waa inaan lagu ridin furitaanka lagu ridin maxaa yeelay sida nabigeenu sheegay sallallahu alayhi wasallam calayhi ruuxu markuu cadhaysan yahay ومر شيطان وكتنبطيو مر ومصلحة أركهيو أما تباسة صوت عصا أي أمو كتماء مر وحميزاني كرماء ومر إساجي ونمب الله يستوي وأنا قد تنبلي مركز صوكالة الضلاقة إن لذيذه معه نبي قلت رسول الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق لا طلاق ولا إساقة في إغلاق ونبي رسول الله عليه وسلم روح أرنك مركو كحجبه أو تلدي سؤوسا لهين أو عرضه أما أي كتن بضطه أما ما إهين لقصبه مركز فوريسان مسير أبو نبي صلى الله عليه وسلم ما هنا الوح فرصة حالة العريسان حالة العريسان تهي وإنا كسكته وإنا كدقاغده وإنا العرض هذا قريسته وإنا توم يرسته وإن معناه وحوي صوت كتو عرضي مركي شادك أديكو أو دجالون على اثنين حالات غير كاجمي جانسا مفرطة متزوج ولا الشوكان مركز عقلي يجيو السوق هذا في ميزانه هذا مير قبل واحد ميزانه لكن مركز على سنتها من مير قبسي جعنت هذا ما هيسيب من كدونتا كله فن أفكار ومثل في واحد دونتا كهرشة سافرات الجلال ضمن وحي السمين في مركز عرض كابر بعض مركز دقوا فيه وقوم من ورميات والله بسلام وهذا مركز واحد كوكا عيسنيات والله كذا مير كابو حجاج كذا وقوم من عرض مركز وحالات خسرت هذا له والنبي صلى الله عليه وسلم من في كل إلى قليل نبي الله يقدر دارم نبي يقول صلى الله عليه وسلم عرون يقدر دارم بقول عليها عرون بنبي صلى الله عليه وسلم يقدر دارم مرتجعات عليها عرون بنبي صلى الله عليه وسلم عرون هذا عرون سنة تقول هقارن منكم أكو محكمة فليو استوى عريسان حكم مري بكرو شريعة الله برا هاي العادي معه sidoo kale ninku markuu cadaysan yahay xaaskiisa inuu furo lama doonayo markuu cadaysan yahay xaaskiisa inuu furo lama doonayo waxa la doonayaa in xilligaas uu ka tago ka dhaqaaqo arrinta ay dadso marka kadib arrinta isagoo degan uu miisaamo fiiriya la doonayo waxa kamid ah inaan talaaq lagu ciyaarin talaaq iyo furitaanku ciyaar ma galo ciyaar ma galo dadka qaar baa ku ciyaara oo sidii ku kaftaman oo isagoo ayna jiddi iyo daacad ka ahayn furitaanka iska sheega furitaanku ciyaar ma galo saddex arrimood ciyaar ma galaan salaasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun buu nabi sallallahu alayhi wasallam saddex arrimood dhabtooduna waa dhab dhayalkooduna waa dhab buu nabigu sallallahu alayhi wasallam saddex arrimood laguma kaftamo lagumana ciyaaro maxaa yeelay haddaad ku ciyaarto dhab bay isu rogayaan ولما تجدين ما تعرف ساك كما ودين ما تعرف صدق عسمعين النكاح
والصلاة والعتاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني جوركو عيار مجرى كفتنا مجرى هذا منك كسر هذا قبل يجي هبلة هيد بان كسية أسونا أقول هذا وان أقبلي قبل هذا وين شيخ هو العيار هي كاس عمري يا شيخ هو انكسبه هي واحد على يبار لأنه وحوي ولي جيبه ساي نكنا جوادي وجورسن كرا وان كسيي وان كأقبلي جواد هذا وين مهتم هذا العيار متبعه هاي لي عيار مقلو جورك عيار مقلو والعيار اللي وان كفتما يرجع عليه يا لجوه تجليني ينسفون كاجا فكان وحلم إذا حرين سلم إذا الضوء ماذا هذول نيكو إذا الضوء كي يوان حريي وان كستمي يلقي الماء وحكم إذا فرسانك هذا كذا حاس كي يوان حري رسبونسر بان كسر يلقي الماء يا شيخ رسبونسر بان مرح يو هذا وحويان حالات بقى قصتي وحفرنا يقول مشكل قلبي جيجا لكن حالات بقى قصتي وما كجب أحسن حاس كي يوان فرنسا على الكيس وين فرنسا وفرنسا خلاص هاي كابتن مالي عيارنا منقشو adiga markay ka soo baxayso waxa ku tala galaysa xukunkeeda inay qaadanayso marka lagu ciyaaro dalqadaha lagu ciyaaro guurka lagu ciyaaro yaani xoreyntana lagu ciyaaro saddexda arrimood waa saddex arrimood oo ciyaartooda iyo kaftankooduba ay qab noqonayaan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ciyaar ma galaan ciyaar ma galaan waa in aad iyo aad looga taxadaro aadaabta loo baahan yahay ay kamid tahay waxa kamid ah aadaabta loo baahan yahay in haddii ay arrinta furitaanka keenaysa iyo guriga dumitaankiisa haddii ay ka socoto xagga haweeneyda ilaan marna waxa guriga duminaya waa ninka marna waxa guriga duminaya waa haweentu hadday tahay midda doonaysa in guriga lagu kala tago xaaladda iyadaa ninku xaq buu u leeyahay inuu yidhaahdo isfuro madaxaaga furo maxaa laga wadaa waa meesha inaa dalqadaha iga gabo dalqadaha iso oo ninkiiba isagoo waxba laga qaadanin buu wax furahayey shareecadu maxay u tiri dumarka haddii ay iyagu furitaanka rabaan waxa bixiyeen maxay ya jawaabtu waxa weeye ninkan xoolaha ka baxaya haweenta maxaa ka baxay ya ninkan xoolaha ka baxay waa kharash garooday haddii laba la isugu daro waana lagu furi karaa kharashna waa kaa baxay hada cadaalad miyaa calaa aqali taqdiir haddii gabadhii ay noloshii diido oo la sii daynayo wixii kharashee galay soo celi waa in la yidhaha sooma leanna waxa weye alqulmu bilgurmi wey ninkii isagu samafal samaynayo waa sida fiican oo gabadhii hadday wada noolaan waayaan oy ku adkaato ay diido iska sii daaya meerkiina iska siiya khayr waa sida fiican waana sida macnaha waxa weeye ixsaanka iyo wanaagga lagu ogyahay laakiin dadkoo dhan ma wada sameeyaan dadkoo dhan ma wada sameeyaanoo nin baa waxa weeye ama bakayl ah ama xaqiisaba ka tanaazulaynin ama doonaya wixiisa inuusan dhaafin kaasoo kale wuu dhihi karaa dee adigaa diidan oo noloshii diidan oo macnaha waxa weeye inaad wax dumiso doonaye oo lagu kari la'yahay hadda waxa weeyaan wixii aan ku siiyey iisoo celi waa midda ilahi fi suurati albaqara uu ku leeyahay falaa junaaxa calayhima fima iftadat bih labada ruux haddii ay haweentu ayna rabin ninka wixii ay isku furato oy ninka siiso ayadana dembi ka soo gaari maayo isagana dembi ka soo gaari maayo isaguna wuu qaadan karaa iyaduna waa bixin kartaa rifaaca ninkii la odhan jiray rifaacana umaanay maya ninkii la odhan jiray ninkii saxaabigii la odhan jiray yani waxa weeyaan yani saabit ibnu qays ibnu shammaas ayaa xaaskiisii nabiga u timi sal alay slam saxiixulbukhaari ku yaalla xadiis markaasay tiri nebi allow ninkan la yidhaahdo saabit ibnu qays laa anqimu calayhi fii diinin walaa khuluq wax diin ana ku eedayn maayo wax akhlaaqana ku eedayn maayo
laakiin waxaan karaahaysanaya oo dhibsanaya aniga oo muslima inaan gaalnimo ku dhaca ayaan ka cabsanay ma rabo ninkan lama noolaan karo ma aha waa diin xun yahay waa akhlaaq xun yahay waxba ka sheegi maayo diintiisa iyo akhlaaqdiisa laakiin naftaydu waa xamili laadahay gaalnimaana iskaga cabsanayaayo xuquuqdiisii inaan meel ka dhacan ka cabsanay saas daraaddeed rasuul allu ninkan lama joogi rabo riwaayo kale waxay leedahay yani saabit ibnu qays wuxuu ahaa nin laga quruxsan yahay ayaduna waxay dumarka quruxda badan bay maalin baa waxay aragtay isagoo rag dhex socda isagoo rag kaleeto dhex socda markay saa u fiiriso ragga meesha socda isaga ugu gaaban isagaana ugu foolxun isagaana ugu madow markaasaa waxay tihi kaasa walla inaana kula joogin nabiga usoo dacwooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasay tihi nabi allow ninkan anigu diinna wax kaga sheegi maayo akhlaaqdiisana wax ka sheegi maayo laakiin ninkaas lama joogi karo naftaydaan rabin nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yihi beertii uu meherka kuu siiyey ma u celinaysa waxay tihi beer iskaba dhaafe xataa waxbaan ugu darimay xataa diyaar waxaan u hayna wax ku daro nabigu wuxu uhi sal alay wasalam maya siyaadada u kaadiyey beertii ma celinaysa haba jir waa celinaysa saabit buu nabigu u yeedhay sal alay waslam kaali bu gabadha beertana ka qaado siidaa buu nabigu ui salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidii buu yeedhay somarta ila waxani waa nafley sidaad adigu dooqa u leedahay bay dooq u leedahay sidaad wax u rabi kartay wax u rabi kartaa sidaad wax u nici kartay wax u nici kartaa haddayna waxbaba kugu eedayninba laakiin waxa weye lafteedaa laga yaaba inay ninka kasoo boodo maaha in la yidhahdo waad xidhxidhnaanaysaayo mustaqbalkaaga halkaasaad ku dhamaysanaysa ma aha ama waad guumaysoobi ama waad ogolaani war la yidhahdo ma laba mid miyo gabadhii iska sii daayo isaga tababaro meherkiina dhaaf iyo wixii kaa galay waad yeeli weyday soo maaha waxaagii baa lagu soo celinaya gabadha siida waad yeeli weyday soo maaha maxkamad iyo qaba baa markaa imaanaysa laakiin mas'alo la yidhaahdo way xanidnaani ama way iyeeli oo qasab ama jiro wadaadada soomaalidu yani ragga soomaalidu waxyaalaha ilaa hadda ay fahansan yihin saas mid baa nairobi buu iska joogaa gabadhii waxba uma hayo ma rabto meel kaley jirtaa waxaa laleeyahy war xoolo qaado gabadhan iska siidaa waxaa laga yaabaa xataa xoolihii intuu qaato markuu xoolaha qaato kadib inuu yidhahdo maba sidaynay xoolihiina qaaday maxaa la samaynaya marka ma aha marka ruuxani in mustaqbalkiisa lagu ciyaaro ma aha reerku waa wada dhaqnaanaya hadduu wada dhaqnaan waayo gabadhu ay ninka la noolaan weydo xaaladaa iyadaa shareecadu xal bay dejisay ninkan wixii meeraha ee ka baxaya loo soo celiyo kadibna gabadhaa sii daayo meerkiisaa loo celiyo hadduusan iska saamaxaynin oo faraha uga qaadayn macnaha su-aasha isweydiintana waxay tahay $500 bay ahayd meerkii gabadha la siiyey ninkana wuxuu rabaa $10,000 hala siiyo saasaan kusii daynaya ma soconayso maya ma soconayso ma xoolo aad gadanaysaa ceesaan aad suuqa geysato iibsanaysa miya ya $10,000 ha layga siiyo war la yidhahdo nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi gabadha beerta ka qaado walaa tasdad buu nabigu ku yuri sal alay waslam ha siyaasani beertaa wax ka badan ha qaadani buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh gabadhu markay ku tiri nebi allow iskaba dhaaf beertay xataa siyaadan diyaar la ahay siyaadada u kaadi buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh marka maxaa adiga kaa galay maxaad ku bixisay wixii aad ku bixisay cod laakiin ka badan haddii xoolo aad gadanayso maaha xoolo aad suuq geysanayso maaha xoolo aad ku gorgorsamayso maaha inaad qaadan karayso maaha waa sida raajixa saxiixa inkastoo masalada culimada qaarkood ay ka muransan yihiin saas way macnaha marka xaaladaasi ayadana hal mar bay imaan kartaa xaaladda uu ninku haweenta furitaankeeda wax ku qaadan karo oo uu madax furasho ka qaadan karo oo dalqadaha gaba uu dhihi karo waa hal xaalad ah xaaladee weye waa xaaladda diidadu ay xagga haweenta ka socoto keliya
رب سبحانه وتعالى وحده فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يعني هذا هوانتي فريسه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا دون السهوين إلى فرصة أو مثل كوبا جلسه أو تي هوري فرصة حوالات بدن آسيسي حوله آسيسي ووحبها كقابنين بربنا سبحانه وتعالى. وما وحب قابنا إنسان مصدد وين يدن بوين مياد قابنا إنسان oo seebaad uga qaadanaysaan idinkoo isgaadhay wakayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin idinkoo isgaadhay oo sirkiinnii isgaadhay oo cawradiinnii isgaadhay ood ku dangudato ku dangaadhay seebaad waxoogaagii yaraa dib ugu noqonaysa ya gunnimo soomaa waa gunnimo meesha ugu dambaysay seeb uga qaadanaysaan rabbi subxana watacaala waxoogaagan aada siisayba هل هذين أو صديق الله سيحتى كما في الله ما تنحى فكثيرا نقول نقول إسلام ربنا سبحانه وتعالى مكوا حرام لكن هل حالة بالغلابي أو حالة الديجر حق يركبها هل كان مرء يدو وحديدن تهي سريع الليين أو غلابي إن وحي سيسين هذا النصف إيش فعلنا ترى هل كان حالة بالغلابي أيضا الشروط بين هذا هاي لكن مدى نقاليسا dib inaan idinku daro waxaad moodaa inay muhiim tahay midaan idinku darayo waxay tahay haweentu haddaad madax furasho ku furtaan oo intay madax furasho bixiso sida aad ku sii daysaan wax soo ceshi la yidhaahda idinkama furra bale haddaad tidhaahdo waa isii waan ku furayaay oy wixii ku siiso macnaha waxay ka dhigan tahay dalqadii ugu dambaysay bay ku furan ما توعدن كرتيد رجعت مله كرتيد صوبت معي ساي صوبت وحوي هذا الرجل ننحو لقى واي ماي ننحو او قوادي مركو وحكا قاسو او فرو حوليه نقاط مركا كدب هذا وهو تسوع الشري رجل لقى واي ماي يا حوليه نواقاسي ايدي نواقبا ما فايدة مركا kuwa noocaas oo kale marka lala dagaalamayo waxa la yiri marba hadaad wax ka qaadateen furitaankeeda eeshi idin kama furna dalqadii ugu dambeysay ku furan taana waa inaad ku targasho rag badan baa meeshaas xogaa marba mugtay jahligu ku tiraa rag badan baa meesha lagu tiraayo hunguri ka haya si isu leeyahay bal haddana waxoogaaga iska qaado hadhowna waa uu saban doontaa si isu leeyahay hadhowna waa iska saban doontaa waa dumar ayuu geli markuu dabinkii ku dhaco ayaa waxa la leeyahay sheekh waxba kuma laabno oday wax ku laabani mid خلاص marka waa inaad talagal ku gasho adoo ku talagashan in aadan soo ceshan karaynin waa inaad hadaad gelaysaa oo xoogaaga qaadanaysa gurigaas qaadato marka saas way macna way aadaabta loo baahan yahay waxa kamid ah walaalayaal oo furitaanka yani waxa way aadaabtiisa kamid ah in furitaanka iyadoo wax dhibaato ah jirin inaan la dhigin khaasatan haweeneyda la qabo waa inaysan ninkeeda furitaan weydiisanin iyadoo wax dhiboo kalifaya aynay jirin rasuulkeena waxaa ka sugan sal alay wasalam xadiis saxiix oo uu leeyahay haweeneydii ninkeeda weydiisata furitaan wax dhibaataa iyadoo aynan jirin jannada udgoonkeeda iyo carabteeda ma hesho buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh udayga jannada 500 oo sano markaad u jirto ayaa carabteeda iyo saxansaxadeedu kusoo gaadhaysa 500 oo sano xataa jannada uma jirsadaan rabbiga iyo rasuulka salawatu rabbi wasalaamu caleyh gelitaan ay galaan iskama dhaaf wax dhibaataa ma jirto reerkii waa dhaqan yahay waa laban yahay waa la isku fiican yahay waa la isjecel yahay baas ma jiro kuleetiga ninka ku dhagaysaa waxay ku leedahay ifur halkaas saddexdeedii dalqadood ii dhig bay leedahay maxaa jira maya ifur
min gayri maa ba'sin buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh hadday dhibaato keentay jirto oo gabadha ku kaliftay inay codsato furitaan ama diin xumo xuquuqdeedii bay la'dahay xuquuqdii gogoshaa dhiman xuquuqdii diilkay la'dahay mucaasharadii wanaagsanayd bay la'dahay sida gabadhaasoo kaleetayba nafteedu kuusatay oo macnaha waxa weye ninkii ay la noolaan weyday hadday jirto dhibaato keenta ama keeni karta inay codsato markaasi kuma jirto laakiin dhibaato la-aan haweentii ninkeeda tidhaahda ifur tidhaahdaayo hadda waxa weye waxay ku talagelaysaa inay jannada ka qabayso jannada ilaha inay ka qabayso oo aynan helaynin unbay ku talagelaysa taladaana waxa weye masalo u baahan runtii in la baraarujiyo iyadana aadaabta u baahan in la ilaaliyo waxaa ka mid ah xaaladda furitaanka markii laysfuro kadib oo furitaanku dhaco labadii ruux waa inaynan col noqonin waa inaan la colloobin labadii ruux ee wada joogay ee muddo noloshu ka dhaxaysay waa inaan colaad lagu kala tegin colaad waa inaan lagu kala tegin inta badan qodobkaas wuu dhacaa inta badan arrin dhacdo laba ruux oo intay isfureen haddana isku fiican ma aad arki oo xidhiidhkii walaaltinimada iimaanku ka dhaxeeya furitaanku ma goynayo walaaltinimadii idinka dhaxaysay ee iimaanku keenay inama almu'minuuna ikhwa bu alla subxana watacala mu'miniintu iyagaa walaalo ah almu'minu aku lmu'min buu nabig sal lay slam mu'minku mu'minka kale walaalkii ma nici karo kama hijroon karo kama jeedsan karo lama colloobi karo ma dulmin karo garabkiisa kama bixi karo xuquuqda ruuxa muslimkii uu kugu leeyahay waxaa ka mudan xaaskaagii aad kala tagteen ayaa ka mudan oo xuquuqda in ka badan kugu leeyahay ninkii noloshu idinka dhaxaysay eed wada joogteen muddo walaaltinimadii islaamku waa idinka dhaxaysay soomaalida waxay dhahdaan meel doqoni meel lagu kafsamay bay moodaa in lagu kala tagay haddiiba laysfurayba waxaa laysu haystaa col xiirxiira oo aan lays arki karin oon salaami dhex mari karin oo haddii laysu yimaadana la kala jeedsan saasaa loo haysta maya waxaan duruuf baa ina dhex martay nolol baa ina dhex martay hadday ina dhex martay waa ku heshiin weynay wakhalaas wixii aan isku darsanayna waynu kala maranay maxaa dhib oo meesha yaalla maxaa dhib oo intaa ka badanoo meesha yaalla ya haddaad masalan nin ganacsi idinka dhexeeyo xoola isku darsataan xoolo ganacsi baad isku darsateen xoolihii ganacsiga waxoogaa wada sii weydeenoo adiguna intaadii la bax ana intaydii la baxay waad kala baxdeen ma coldaaki miyaad colowdeen maya colmani bal dadkaan isaga sokaynaa dadka mu'miniinta intooda kale waaba isaga sokaynaa annagaa waayana na dhex mareen oo wax wadaagnay sidaas daraaddeed labada isfuray ma aha furitaanku macnihiisu ha la colloobo ma aha macnihiisu ha laysku xadgudbo ma aha macnihiisu ha laysdulmiyo ma aha macnihiisu ha laysdacaayadeeyo ma aha macnihiisu ha lays aflagaadeeyo ruuxan muslimkeed kala tagteen wuxuu kugu leeyahay xuquuqdii ay mu'miniinta kale kugu lahaayeen haddii aada la kulanto salaan haddii uu xanuunsado soo booqo janaasadiisa ka qaybgal yacni waxa weye walaaltinimo iyo jacayl qalbiga ugu hay ha nicin sida gaalada loo naco o kale ha u nicin labadii kala tegay walaaltinimadii islaamka iyo iimaanku waa inuu ka dhexeeyo oo ayna gu-in saasaa la doonaya macana ayb waxaa kaleeto iyadana aadaabta ka mida in la ilaaliyo u baahan haddii ay timaado yani waxa weeyaan caruur hadday meesha joogto caruurtii sidii loo wada dhaqan lahaa waa in laga shaqeeyo oo aan ninkana ilmihiisa lagu dhigin hooyadana ilmaheeda aan lagu dhigin oo waxyaalaha furitaanka ka dhashay haddii hooyada ilmaha loo dhiibo hooyadu ilmaha ay hayd inta badan waxaa dhacda inay caruurta aabbahood ku dirto oy uga dhigto sidii wax cadow oo kale ilmihii ay ku tiraahdo waa laydin dayriyey bal caruurta kaleba fiiriya aabbahood waa la jooga idinka waa laydin nacay ilmihii cuqdad bay aabbahood u gelini ilmihii cuqdad bay qaaday waxay ku korayaan nacayb aabbahood ay necab yihiin aabbihii hadduu ilmaha hayo oo uu u geeyo kollay dumar eheladiisa unbuu u geynay dumarkii eheladiisa iyo aabbihiiba waxaa laga yaabaa inay ka shaqeeyaan ilmaha hooyadood in lagu diro
oo lagaba dhigaba inay hooyo la-aan yihiin oo hooyadoo dembi la saaro oo la yidhahdo way idinka tagtay oo la yidhahdo way idin dayacday oo la yidhahdo ilmo kalay samaysatay maxay idinka idinku faraysaa carruurtii in aabbahood lagu diro ama hooyadood lagu diro mas'alo furan ma aha haddii la kala tegay carruur baa idinka dhexaysa carruurtii idinka dhexaysa dhib la-aan nin walba cid walba xilkii ka saarnaa inuu gutaa la doonaya rabbi subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladi midda wax dhashay ilmaheeda yaan lagu dhibin kan ilmaha loo dhalay ee aabbaha ana ilmihiisa yaan lagu dhibin saasuu rabbi ilahi subxana watacaala ha in lagu heshiiyo wax lagu wada wato dadkaa bini aadam baa idin dhex maray xoolaa dadka dhex maro oo waxun baa dhex maray laakiin bini aadam baa idinka idin dhex maray shay qaaliyaa idin dhex maray sidaas daraaddeed waxaa la doonayaa aabbuhu hadduu doonayo ilmihiisa inuu arko si fudud inuu ilmihiisa u arki karo hadduu doonayo inuu danahooda ka taliyo si fudud inuu uga talin karayo hooyadu hadday doonayso ilmaheeda inay aragto ama la joogto waa in loo suurtogeliyo waa inaan laga xanibin ilmaha hayntooda markay yaryar yihiin hooyada xaqu leh shareecada islaamku markay yidha hooyada xaqu leh haddayna guursanin sida nabigeena ka sugan sal alay wasalam hooyadu xanaanada ilmaha iyadaa u xaqnimo leh haddayna guursanin hadday guursato markaa kadib waxaa imaanaysa hade markaasi yay maslaxad ugu jirtaa ilmaha ma hooyada mise aabbaha laakiin intayna guursanin ilmaha lagama qaadan karo allahuma hal midi waa suuroobi kartaa hadday noqoto ilmaha diintiisa iyo tarbiyadiisa haddii loo cabsado oo haweenta looga cabsado inay ka adkaan weydo ama ilmihiiba inay gaaloobaan looga cabsanayo ama hooyadiiba meel khatara ilmaha ay ku wado markaa ilmaha diintooda in la badbaadiya wax kasta ka muhiimsan laakiin arrintu mar hadday dabiici tahay oo ay sidii la yaqaanay tahay ilmaha hayntooda intayna qaan gaadhin hooyada u xaqnimo leh hooyadii maadaama ilmihii la siiyey waxaa la doonayaa inayna aabbaha ku dhigin oo ayna dhihin agtayda kama soo dhawaan karto oo ayna booliiska ribood u geynin oo ayna dhihin ninkaasi ilmaha igama soo dhawaan karto oo ninkii ilmihiisii aan laga dhigin sidii wax macnaha waxa way cod isu ah oo kale waxyaalahaasoo dhan waa ictidaa iyo xadgudub waay waxay ka dhalanaysaa kala tagga ruuxda lagu kala tegey iyo nafsiyadda lagu kala tegay baa waxay tahay collaysan iyo colnimaa lagu kala tegaya loomana baahna laba ruuxo walaalo ah noloshiina ay inay wadaagaan ku adkaatay kadibna isu fududeeyey saa inaad u aragtaan baa la doonaya wixii idinka dhexeeya markaa ka soo hadhay ee carruurta iyo wixii kala aba in markaa kadib macnaha waxa weeyaan laga wada shaqaysto bal in laysu samafalo oo gabadhii muddaxaas ku ahayd oo noloshaada qayb ka mida ka soo qaadatay oo ilmo kuu dhashay adigoo kabin xataa inaad u samafasho ood hadiyad u geyso ood u dadaasho ood wax siiso ood u naxariisato hooyaduna sidoo kaleeto ninkii muddo ay nolosha soo wada wanaageen oo ilmaheeda dhalay waxaa la doonayaa inay u hayso caatifo iyo nuglaan iyo naxariis iyo furid ka fara badan dadka kale mid ay u hayso naxariistaasaa la doonaya walaalayaal naxariista noocaasoo kale baa la doonaya guryuhu haddii la kala tago in ay guryuhu ku dambeeyaan dadkii wada joogayna inay ku dambeeyaan waxaan kaga baxaya aadaabta waxaa ka mid a furitaanka aadaabtiisa waxaa ka mid a ka dambaysa labada ruux markay kala tagaan waxaa la doonayaa sirtii ka dhaxaysay ee guriga taallay inaan laga sheekaynin haweentuna waa inayna ka sheekaynin ninkii ay kala tageen wixii sir ee u dhaxaysay ninkuna waa inuusan ka sheekaynin xaaskiisii hore wixii sir ee u dhaxaysay ama dabeecadooda ama jidhkooda ama mucaamaladooda ama ruuxu qaadkiisa ama waxyaabo hoose oo labada ruuxa isqaba un ay og yihiin arrimaha noocaasoo kale ah waxaa la doonayaa mar walba inay qarsoonaadaan limaada lianna xam bay noqonaysa wax ka sheeg bay noqonaysa durid bay noqonaysa meel kaga dhac bay noqonaysa wuxuu noqonayaa ruuxaasi marka qolada nabigeenu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh yaa macshara man aamana bilisaanihi
walam yadkul aliimaanu fii qalbi war kuwan afka iimaanka ka sheeganaya qalbigoodana uusan u deginow laa taktaabu lmuslimiin muslimiinta ha xamanina ceebahoodana ha raacraacinoo ha dabagelina fainahu man tatabbaca cawrata akhiihi tatabbaca allahu cawratah waman tatabbaca allahu cawratahu yufadixhu walow fii jawfi bayt haddaad dadka muslimiinta cawradooda daba gasho ceebtooda shaqo ka dhigato sheegto xamato adigana ilaahay baa ceebtaada dabagelaya nin ilaahay ceebtiisa dabagalayna wuu fadeexayni walow gurigiisa dhexdiisaba ha noqde ka fakan maysa rabbiga subxana watacala gabadhan muslimiinta ee walaalkaa markay kala tagteen wixii idin dhex maray ceebaheeda waa inay qarsoonaadaan waa inaan lagaa maqlin waa inaadan ku sheekaynin sidoo kale gabadha muslimadee ninka muslimka ay kala tageen waxaa la doonayaa ninka ceebihiisii inaysan banaanka geynin inaysan ku sheekaynin allahuma inay dantu kalifta mooye inay dantu kalifta mooye mar baa dhici karta dantu kalifi kartaayo hadde waxa weeyaan ama ruux baaba iiga naseexee ku dhihi kara oo ninkii inta loo yimaada la dhihi karaa war gabadhii ina heblaad baan guursan rabaaye niyo maxaad igula talinaysa markaasoo kale waxaad ka ogtahay waa sheeg liana addiina anasiixa siduu nabigu yuri sal alay wasalam addiinu nasiixa diintu waa naseexo maslaxaa ku xidhantay markaa hadday markaa kadib maxkamad ay noqoto oo kale inaad dacwooto ood wax ka sheeganayso wixii jira waad sheegi kartaa dembina ma noqonayso sida gabadhii xadiiskii saxiixulbukhaari oo ku yaalay nabigeena sal alay wasalam rifaaca saxaabigii la odhan jiray xaaski rifaaca nabiga u timi sal alay wasalam markaasaa waxay tihi nebi allow nin baan qabi jiray ninkii waan kala tagnay ninkan aan guursaday ninkan aan guursaday nin ideeqaya maba ahaba nin ideeqaya maba ahaba waxa uu wato xubinkiisa taranku maradaa faraqeeda oo kale wayaan bay tiri intay saa marada u laalaabay marka nin raganimo meesha ku haya ma aha raganimo ma hayaba markaasuu nebigu fahmo o wuxuu yihi ma ninkaagii horead doonaysaa inaad ku noqoto kii hore xaggaad u socotaa haabay tii kii horean doonaya inaad ku noqoto markaasuu nebigu yuri sal la alay waslam laa maya bu nabigu sal la alay wasalam xataa yaduuqa cusaylataki wa taduuqa cusaylatahu bu nabigu sal la alay wasalam maya bu nabigu kii hore ku noqon maysid ilaa kan dambe malabkaaga yar uu dhadhamiyo adiguna aada malabkiisa yar dhadhamiso buu nabigu sal la alay wasalam maxaa laga wadaa malabka yar iyo malabka yar waa hawshii galmada iyo shahwada ilaa si fiican aada sariirta isugu aragtaan oo raganimo sile si raganimo le aada isu aragtaan kii hore kuma noqon kartid buu nabigu sal la alay slam maxaa yeele kii hore 3 dalqood ku kala tageen dalqadii ugu dambeysay ku kala tageen gabadhu marka ninka iyo xaalkiisa iyo raganimo xubadiisa iyo inuusan macnaha waxa weye dumarka wax ka tari karin iyo inay sheegto waxaa ku kalifay maaka maaha laakiin waxaa ku kalifay way dacwoonaysaa maxkamad bay taaganta xaalado noocaas oo kale waa dhici kartaa aad ku qasbanaato labadii ruux ee kala tegey ka kale inuu wax sheego oo wax ka sheego laakiin waa xaalado naadir ah asalku waxa weeyaan sirtii gurigu waa inay qarsoonaato haddii la wada joogana waa inay qarsoonaato haddii la kala tagana waa inay qarsoonaato ruuxa muslimka ee walaalka ay kala tagteenna waa inaadan dulmiyiinoodan ku xadgudbin sida ayaa la doonayaa aadaabta noocaas oo kale ah inuu furitaankeenu ku dhaco sidaa haddii uu noqdo shaki ma laha furitaanku ceeb maaha dhib weyn inuusan geysanin baa laga yaabaa laakiin furitaanku markay ka dhalato dhibaatooyinka furitaankiiba ka daran oo ka dhib badan markii laga dhaliyo ay ka timaado markaasaa mushkiladiisu badanaysa muxaadaradii ku saabsaneyd aadaabta dalaaqa intaas ayaan ku gabagabaynaynaa allah subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa hadalka dhegeysta kiisa wanaagsanna raaca wixii sawaaba ilahay inuu ajir naga siiyo wixii gaf iyo khaladana allah subxaana watacala inuu noo dhaafo ayaan weydiisanaynaa hada wabilahi tawfiq wasala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi wasalam bismi illahi raxmaan raxiim waxaynu muxaadarada ku daba qabanaynaa dhowr su-aalood oo ku saabsan dalaaqa iyo aadaabkiisa waxyaaba la xidhiira markaa su-aasha koowaad wuxuu saailkani leeyahay waxaa jira rag fara badan oo aan rabin inay xaaskooda sii haystaan
haddana ku dhiba si ay haweenaydu u codsato furiinka u codsato ayuu ku dhibayaa. arrintaa xukunkeedu muxuu noqonayaa? bismillahi raxmaan raxiim. waxaan sheegnay aayaddii ku jirtay suurat nisa, ata'kuduunahu buhtaanan waisman cadiima wakayfa ta'kuduunahu. rabbi subxaana watacaala aayaddaas wuxuu ku diidayaa dumarka wixii la siiyey in laga qaato. asalkuna waa saas, waxaad hadiyad u siisay ama hibo u siisay ama dahab ugu gaday ama aradbax u siisay iyo wixii aada meher u siisay inaad ka qaadato arrin bannaan maaha. inaad ka hadashood kaga noqotona ma banaana. hal xaalad abay shareecadu soo reebtay oo aayadda suuratulbaqara ku jirta ay soo reebtay, oo xaaladda ay diidadu gabadha xaggeeda ka socotaa bas. xaaladdaa wixii ka soo hadhay ninkii wax ku raadiya wax ugu xalaaloobi maayaan, xoolaha gabadhana uma banaano inuu qaato. waxaa ka mid ah inuu ninku cadaadiyo oo haweenta intuu cadaadiyo nolosha ku dhibo si ay uga codsato furitaan. markay furitaanka codsatona uu yidhaahdo dee adigaa codsadaye isfuro, ayadu ma codsanina adaa ka keenay oo noloshii ku cedhiriyey. sidaas daraaddeed haddii uu ninku qasadkaa iyo niyadda noocaas oo kale a leeyahay oo ah haweenayda cadaadi ha isfuratee, xoolaheedu xalaal u noqon maayaan. wixii uu siiyey inuu ka qaatana xalaal u noqon maayo, bal ninkaasoo kale waa in lagula dhaqmo binaqiidi qasdihi, sida shareecadu qabto. macnaha man istacjala shaya qabla awaani cuqiya bixirmaanihi, waa in loo diido laga hor istaago loo suurtagelinin inuu madax furasho qaato oo xoolo qaato. xoolaha qaadashadiisa iyo madax furashada shareecadu waxay ugu talagalay xaalad naadir ah oo haweenaydii naashizowday oo iyadu aynan nolol rabin in la wada noolaado. laakiin inay ninka xaggiisa ka timaado, isagu uu masalan waxa weeye cadaadiyo, isagu dhibo, isagoo xoolo doon ah, taas iyadu waa xaaraam, waana xeeladaysi, xoolana kuugu xalaaloobi maayaan. wabilahi tawfiiq. gabadha warqadan soo qortay waxa ay leedahay ninkaygu diinta islaamka ayuu caayaa. markaan u sheegay arrintaasna waxa uu igu yidhi ilaahay miyaad adigu aragtay? ninkaas waxay tiri muddo 6 bilood ah waanu kala maqanahay oo gurigii waan ka cayriyey ama waan ka eriyey. haddana ma doonayo inaan ku noqdo. waxaase doonayaa inaan idinla tashado, maxaad igula talin lahaydeen? diinta ayuu caayaa. ilahay baa qornaa ilaah. bismillah. allah subxaana watacaala walaalayaal, wax ka sheegidiisa iyo caydiisa waa gaalnimo iska cad. diinta ilaahay caydeeduna waa gaalnimo cad. rasuulka iyo malaa'igta caydooduna waa gaalnimo cad. rabbina qur-aanka wuxuu ku yidhi qul abillaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum. ma allah iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisaad ku jeesjeesaysaan, waxba ha cudur daaranina waad gaalowdeene. waxay ku timid aayaddu qola munaafiqiina baa dagaalkii tabuuk markii loo sii socday bay saxaabadii nebiga wax ka sheegeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. waxay yidhaahdeen waa rag markii hunguri yimaadana hunguri weyn, markii dagaal yimaadana fulaye ah, markay hadlayaanna beenaalayow. yay ula jeedaan asxaabtii nebigay saa ku yidhahdeen salawatu rabbi wasalaamu caleyh. aayadanaad soo degtay oo rabbi leeyahay allah iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisa miyaad ku jeesjeesaysaan, waxba ha cudur daaranina waad gaalowdeen baa lagu yidhi.
bal asnaamta ay gaaladu caabudi jireen baa nebiga lagu yidhi sal alay wasalam sanamyadooda iyo dhagaxyaasha ay caabudaani wax ka sheegidoodu hadday ka dhalanayso alla inay caayaan dhagaxyadooda ha caayin baa layidhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu allaha cadwan bigayri cilmin haddayba ka dhalanayso alla inay caayaan asnaamtooda ha ka caayin baa layidhi cayda ilaahay la caayo ama diintiisa la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama ma ahe malaa'igta la caayo ama qur'aanka la caayo muqadasaadka waaweyn ruuxii wax ka sheegayo waa gaaloobaya diinta waa ka baxaya wax loogu cudur daarina ma jiro shaykhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmatullah wuxuu ka qoray kitaabka uu ku magacaabay assaarimu almasluul calaa shaatimi arasuul wuxuu ku soo guuriyey culimada islaamku inay isla ogol yihiin ninkii rasuulka caayo ama diinta caayo inuu diinta ka baxayo culimada islaamku waa isla ogol yihiin masale khilaaf ku jira maaha culimaduna waxay ku daraan kutubta fiqiga markaad akridaan oad aragtaan markay ka hadlayaan asbaabta keenta ridoobidda ruuxu inuu diinta ka baxo asbaabtaa markay tirinayaan waxay ku daraan allah rasuulka diinta iyo malaa'igta caydooday ku tiriyaan masalada marka masale fudud ma aha mas'aladaas waa mas'alo inay caddaasan la doonayo ninkii allah caaya ama diinta caaya xaaskii uu qabay way ka furanta kuma xidhna haddii la hubo ninkaasi inuu ilaahay caayay ama diinta caayay gabadhaasi xarig uma hayo in maxkamad la geeyo laga furano uma baahna way ka furan tahay hadduu dhinto ku tukan maysaan magaal baad ku tukanaysaan qubuurta muslimiinta geyn maysaan kaniisadaha geeya ha aataniyadu baktigiisa ha qariyeen hadduu wax gawraco cuni maysaan gabadh muslimada mana qabi karo mana guursan karo waa inuu dib u ashahaato oo islaamka dib usoo galo wey maaha wax kastana maaha dembi buu galay iyo ruux buu dilay iyo wuu sinaystay iyo xooluu xaday iyo masaladu ma aha meelaha soka maaha masale culus wa inay cuslaatona waa loo baahan yaho qalbigeenna ku cuslaato saas daraaddeed waa in la taxqiijiyo haddii la hubo ninkaasi inuu diinta ilaahay caayay gabadhaasi xaas uma aha nin ilaahay caayayo diintiisana gabadh muslimada xarig uguma xidhna gaalnimadiisana shaki kuma jiro wax culimada oo ka muransanna ma jiro wabilahi tawfiiq jazaka allahu khayran shaykhana saa-ilkan wuxuu leeyahay dhulkan aanu joogno waxyaabaha ugu badan oo furiinka dedejiya waxaa ka mid ah kala noolaanshaha waxa sabereedka loo yaqaano oo dhaqaale lagu raadsanayo waxaase dhacda in uu soo jiido arrinkaasi khasaare ay ka mid tahay burbur ku yimaada reerkii iyo carruurtii iyo qoyskii oo dhan marka arrintaas maxay shareecada islaamka qabtaa kala noolaanshaha macnihiisu dabcan waxa weeye sida waddankan la ogyahay yani sharcigiisa waxaa ka mid ah in ninku aanu naagtiisa furi karin ama labada qof aanay kala tegi karin ilaa inay sanad soo kala noolaadaan mooye yani sanad inay soo kala noolaadaan oo marka hore sanadkaas ay soo dhamaystaan markaa kabacdi ay furiin u imaan karaan marka dadka qaarkood waxay sameeyaan si ay dhaqaalo u helaan oo labadii qof gooni loogu kala bilo ayay waxay sameeyaan in ay yani dawladda u sheegaan in ay isku caraysan yihiin oo sanadkii sabrika ama kala noolaanshaha ay ku jiraan marka arrintaas maxay diinta islaamka qabtaa bismillah waxyaala waxaa jiraan isweydiin u baahnayn ma umalaynaya hadda inaad iweydiineysaan ma xalaal baa mise waa xaaraan ya mataasaad iweydiineysa umalayn maayo laakin seen uga tagnaa baad iweydiineysaan baan umalaynaya seen u daynaa oo waan ognahay inay xaaraan tahay xadiiska nabigeena sal alay wasalam imaamu muslim uu soo saaray abu hurayra nabiga ka warinaya nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam ina allaha amara almu'miniina bima amara bihi lmursaliin alla wuxuu amray mu'miniinta wuxuu rususha amray oo rususha muxuu amray yaa ayuha arusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixan bu alla ku yhi subxana watacaala rusushiyay xalaasha cuna
camal saalixana sameeya. mu'miniintana intoo kaleu amray, yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa razaqnaakum washkuruu lilah. waxyaalahaan idinku irsaaqnay xalaashooda cuna, ilaahayna ku shukri. intii rususha la faray baa mu'miniintana la faray. uma dakara arajula, ujeedadeedu waa intan dambe. nebigu wuxuu sheegay sal alay wasalam nin yutiilu safara, socdaalka dheeraynaya, ashcata akbara, fasaasan oo boodh badan, yamuddu yadayhi, gacmaha taagaya, yaa rabbi buu ku hayaa, gacmuhu taagaya. maطcamuhu xaraam, malbasuhu xaraam, mashrabuhu xaraam, gudiya bilxaraam, faanaa yustajaabu lidalika buu nabig sal lay slam. markuu allahda ku hayo, rabbi ku hayo, cuntadiisu waa xaaraam, cabitaankiisu waa xaaraam, yani waxa uu qabiyo labiskiisu waa xaaraam, waxa lagu dheesiyey waa xaaraam. seebaa wax looga yeeli oo rabbiyow markuu leeyahay see looga aqbali buu nabi salawatu rabbi wasalaamu caleyh. ma dhici karto. ilahay baan idinku dhaariyay, bal u fiirsada. 4 arrimoodoo wuxuu la yimid, 4taba mid kasta uu yahay asbaabta lagu aqbalo baryada lagu aqbalo. 4 arrimood. midda koobaad maxay tahay? waa musaafiro, waa socoto. ruuxu markuu socotadayaa nabigeenu wuxu uhi sal alay wasalam 3 ruux baryadooda lama soo celiyo oo markaba waa la aqbalaa. waa ruuxa socotadaee musaafirka ah, ruuxa laga gardaran yahay, iyo waalidka ilmihiisa u ducaynaya. 3daa baryadooda ilaahay ma celiyo, waa la aqbalaa. soo socoto maaha ninkani. sababkii lagu aqbalaya, weliba safar dheer buu ku jiraa buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalamu caleyh. waa sababtii koobaad wey. sababta labaad waa ashcaso, waa akbaro, basaas iyo bus baa ka muuqata. addoonku markuu basaasan yahay oo rafaadsan yahay oo dhibaata ka muuqatana, ilaahay subxaana watacaala ilgooniya buu ku fiiriyaa. xadiidka nabigeena wuxuu yahay ruba ashcasa akbara law aqsama cala allahi laabarahu buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh. waxaa badan mid basaasan oo rafaad ka muuqdo, oo bus iyo boodh ka muuqdo, oo hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay dhaartiisa u fulinayo. basaasta iyo rafaadka addoonka ka muuqda waxay keentaa in baryadiisa la aqbalo. soo sababkii labaad maaha. sababta saddexaadee uu la yimid waxa weeyaan gacmihiisuu taagaya, kor u taagaya. nebigana waxaa ka sugan, alle wuxuu ka xishoodaa addoonkiisu hadduu gacmaha u taagto, gacmihii oo maran inuu ku soo celiyo, ilahay waa ka xishoodaa subxaana watacala. soo sababtii saddexaad maaha. sababta afraad, ilaahay magacyadiisuu ku dalbayaa, yaa rabbi buu leeyahay. ilaahayna asmaadiisa wanaagsan ruuxii ku barya, dacwada waa ka aqbalaa iyo baryada. walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha. 4 sababood oo mid kasta ay keenayso in baryadiisa la aqbalo ayuu 4tiiba isku daray. maxay natiijadu noqotay? 4tii uu la yimidba waxba lagama yeeline, faanaa yustajaabu lidalika. seebaa wax looga yeeli buu nabigu uri salawatu rabbi wasalam aleyh. see wax looga aqbalaya? maxaa diiday? waa xaaraam cune. aaway salaadaadii, aaway soonkii, aaway zakadii, aaway baryadii. alilaahu gaalada naga qabo baan leena, ilaahu gaalada dhibkeeda naga qabo. xaaraan baad cuntay, lagaa yeeli maayo. alla ilaahayow ilmaha ii badbaadi, xaaraan baad cuntay, lagaa yeeli maayo. alla ilaahayow sidan ii dhaan, laguu dhaami maayo, xaaraan baad cuntay. alla ilaahow wadankii noo deji, laydiin dejin maayo, xaaraan baad cunteen. samaartaan faanaa yustajaabu lidalika meesha taalla. sidaas daraaddeed mustaqbalkaaga ha ku ciyaareen. waxaan macno lahayn aakhiradiina iyo diintiina iyo mustaqbalkiina ha u dhimanine, waxaan sakitaankae qashinkae xaaraamta iska daaya. allah isku xidha subxaana watacaala. law anakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kama yarzuqu tayr. haddaad ilaahay u tala saaran lahaydeen siday shimbiruhu u tala saartaan, ilaahay waa idin irsaaqi lahaa siduu shimbirahaba u irsaaqo. shimbiraha samaynaan subaxdii iyagoo gaajaysan bay ka lahaan, galabtiina iyagoo dhiragsan bay soo noqdaan. waxba meel ma dhistaan. war waxan ilaahay baa qoray oo adoon dhalanin oon adduunka imaanin bay waxani qorshaysan yihin. wixii ilaahay kuu qoray kolley way ku soo gaadhaye, ha degdegi. waan gaajaysnahay. haddaad gaajaysan tahay, haddaad dhibaataysan tahay, dhareerkaa la iska duwaa. haddaad dhiban tahay, dhareerkaa la iska duwaa. sooma faraj ilaahay baa imaanayo oo waa laga bixi waxane.
waa la doogoobi yaa la dacaroobi waa la doogoobi insha allahu tacala waxa waa laga bixi doonaa yaan la dacaroobino dacar waxaa ugu daran midii janno ku tegi soma dacar waxaa ugu xun midii janno kaa qadis cadaab ilahina ku geliso subxana watacala marka walaaliya hala xishoodo oo diin iyo xishood hala yeesho waxyaabaha qaarkood ha laga xishoodo waxyaabaha xaaraamnimadooda waa iska caddahay laakiin ilahay idinku kaalmeeyo inta samaynaysa inuu ilahay ka qabto subxana watacala inta aan samaynaynin ilahay ha ka ilaaliyo subxaana watacala hada bilahi tawfiq jazaka allahu khayran sheekhana saa-ilkan wuxuu leeyahay aadaabta furiinka ma ka mid tahay in waraaq la qoro waxaa dhacdaa in dumar fara badan ay isku hawliyaan in warqad loo qoro oo ay dalbadaan in warqadii loo qoro oo ay moodayaan haddii aan warqadaasi loo qorin in aanay furayn su-aasha waxay leedahay furitaanka in qoraal lagu sameeyo ma laazim ba jawaabtu waxa wey maya jawaabtu si gaaban maya laazim maaha in qoraal lagu sameeyo way fiican tahay in qoraal lagu sameeyo maxaa yeele waa documenti laakin qoraalka markhaatiyaa kaga filan haddii markhaatiyo loo sameeyo afkana laga furo furitaanku waa dhacaa haddii qoraal lagu sameeyo la qorona wuu dhacaa laakin laazim ma aha ninku inuu haweeneyda hadduu furo uu waraaq u qoro laazim maaha wax laaziminayo oo sharcigana ma jiro wabilahi tawfiiq jazaka allahu khayran sheekhana saa-ilkan waxa uu leeyahay sheikh haddii aan haweenadayda ku dhaho waad iga furan tahay aniga oo aan dalqado go-an sheegin dalqadahaasi yani furiinkaasi ma waxa uu noqonayaa hal dalqada mise wuxuu noqonayaa wax ka badan hadalkaydii aan muxaadaradii aan ka hadlaynay haddaad si fiican u dhuuxdeen ama si fiican u fahamteen arrintaas jawaabteeda waa idiin cadda haddii laydin yidhi 2 dalqadood iyo 3 dalqadood oo israacaya qur-aanna ma sheegin sunnadii nebigana laguma hayo ninku hadduu yidhaahdo waan ku furay dalqadna uusa magacaabin waa hal dalqad ah